Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa salaamantii daawadayaal meel walba joogtaan iyo si walba muuqaalkan u daawanaysaan. Kusoo dhawaada cashirkeena 17aad. Insha Allah maanta cashirkeena waxaan ku qaadan doonaa sidee baa loo abuuraa purchase order. Marka kusoo dhawaada cashirkeena. Intaanan u gudbin qaybta baraatikada cashirkeena ugu horeyn waxaa ardayga muhiim u ah inuu fahmo waxa loo yaqaan purchase order. Purchase order waxaa loo yaqaan inaad dalbato product, okay? Aad ka dalbato qofka aad ka soo adeegato. Tusaale ahaan dukaan aan gadnaa, taleefanadii aan naga dhamaan rabaan. Marka taleefanadii aan dalbanay, okay? Markii aad dalbato lacag ma aadan dhiibin, alaab ma aysan ku imaan, soo saameyn oo financial ma yeelanayso. Laakiinse waa inaad dalbataa, okay? So warqad aad u diri lahayd vendor-kaaga ama supplier-kaaga qofka sidoo u yaqaan ama qofka ka soo adeegato warqadii aad u dir lahayd ayaa maan sameyn doona. Marka maxaa sugaysaan aan soo furno software-keena. Marka aan soo furno software-keena QuickBooks-ka sidaan ayuu u yaalaa. Shaqada ugu horeysa qabanayno waxay tahay inaad meeshaan qorto purchase order aad taabato, okay? Waa ku soo furmi doona purchase order. Qaab kale oo aad ku soo furo karto ayaa asna ku tusi doona inaad tagtid halka qoran tahay vendors kadib aad ka sii doorato meesha qoran tahay create purchase order aad kasii dooratid. Isla shaashadii ayaa ku soo furmi doonto. So waxaan rabnaa halkan waxaan gelinaysaa qofka alaabta aad ka gadanaysid vendor-ka magaciisa gelinaysaa. Anaga tusaale labadan vendor aan noo samaysan mid ka mid ah la iska dooro, okay? Kaamil computer soo kale taad. Halkan waxaa gelinaysaa waxa aad ka dalbanayso product aad ka dalbanayso magaciisa, okay? Anaga tusaale waxaan leenahay iPhone 12. iPhone 12 waxa u baahanaa leenahay 100 xabo ugu baahanaa. Waxaa kale u baahannahay iPad. Meeshaan waxay gelinaysaa product-yaasha u baahanto dhan aad gelinaysaa. Soo tan waxay ka caawinaysaa hadhowt inaanad kala ilaawin. Markii aad warqad la'aan ama aad iska tagto suuqa waxaa macquul ah inaad ilowdo alaab aad u baahneed aad soo ilowdo. Laakiin markii aad purchase order aad samayso warqadda aad daawacanaysaa, warqadii aad qaadanaysaa, okay? Kadib vendor-ka u diraysaa ama adaaba qaadanaysid aad u geynaysid. Okay, iPad waxa ugu baahanaa tusaale ahaan 30 xabo ama tusaale ahaan iskaga baahanaa. Okay, marka meeshaan ay gelisid tirada aad u baahan tahay meeshaan waxay gelinaysaa purchase number, purchase order number automatic asaga isku gelinay had kii koowaad sameeyno way kan labaad asaga isku gelinay laakiin sidaartii inaad wax kale aad gashid waa gashan kartaa. Halkan ugu hooseyso waxa ugu jiraa lacagta totalka kaaga bixayso. Waxaad dalbanaysaa iPhone 12 oo 100 xabo ah iyo iPad oo 30 xabo ah. iPhone waxaa ugu fadhiyaa 200 aan ka soo bixinayna. Marka 200 hadii lagu dhufto 100 iyo lagu daray 30 oo lagu dhufto 250 waxay isku noqon doontaa $27,500. Waa mid koowaad 20,000 oo noqona, mid koowaad wuxuu noqonaa 30 lagu dhufto 250 $7,500. Nice. Marka inta aan save and close aan dhihin waxaad samaysan kartaa inaad daawacato. Haddii computer-kaaga uu printer ku xiran yahay meeshaan printer ku qoran tahay taabanaysaa. Haddeerta anigu computer printer miyuu xirno laakiin preview aan tusaa sida warqadda naqanaysa ayaan tusaa. Okay, iska leh do not show again iska leh. warqad saan u taalaa marka waxaad dalbanaysaa iPhone 12 iyo iPad quantity ka dalbanayso rate-ka kugu fadhiyaan amount-iga marka waa kaasa close iska leh marka save and close aan leenahay laakiin save and close inta dhihin wax financial reports keen saameynaya mid sababtoo ah lacagna ma aanan dhiibin kaliya waxaad dalbanay alaab oo kaliya aan dalbanay marka save and close noore save and close marka dhano order-keeni sidaas ayaan ku dalbanay warqadeena qaadanayna suuqa tigina marka suuqa tagno purchase order-keena soo sameynayna marka alaabteena imaado markaas aan gelinayna waxaad baas xasan nuur oo leh adoo dhaxal reebi karo ha noqon inta aad timin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.